arrinta maanta halkaan ugu soo fariisanay waa arrintii baryahanba ka jirteen gobolkan Awdal ama galbeedka Somaliland muddadii dambana annagu aan gacanta ku haynaa dad duqeydan nahay sidii saxaafadda ka maqlayseen xukuumadda aad ka maqlayseen meel walba ay kala hayeen waxaan u dhibin odayaasha arrintii iyada ahayd baan maanta goosanay inaan magaranaysaay markay muddo dhaaftay inaan halkan kaga hadalno bal bayaamino waxyaabaha la naga sugayay iyo halkay wax joogaan haddii aan bilaabo arrinta iyada ah wax badan baa loo xambaariyay tagadeeda oo baraha loo xambaariyay hawlo badan baa dusha loo saaray suldaanka Sultaan Abi Bakar wuxuu ahaa suldaan salaadiinta kamid ah buweey horena uga mid ahaa tagada u baxay runtii halka imika haddaan nahay duqeydan runtii waxaanu doonaynay in aan suldaanka maadaama aan waayeelnahay suldaanna uu yahay in annagu baka salaadiin ahaan iyo ka duqey ahaan aanu dib u dhigno oo aan lagu degdegin wax hadala iyo wax magaranaysaa lagu degdegin waxaan doonaynaa in suldaanka la kulano runtii muddadii hore waxa soo hayay reerka suldaanka uu hayay baa daba taagnaa soo hayay arrintaas soo hayay markii dambe xukuumadda ayaa soo gashay markii saddexaad annaga ayaa soo galay waxaan doonaynaa inaan la kulano oo maadaama duqey aan nahay isla duq yahay inaanu ku degdegin la kulano aan doonaynay runtii way noo suurtagal weeyay waxaan helay shay aan muddo lahayn ragga duqeydeen u dirnay nooma keenin wax muddo ah iyo wax meel intoona nooma keenin adreeskiisina runtii waanu weynay marba ka dambaysan arrintii korid bay yeelatay waxaan halka ka cadaynaa maanta in Sultaan Abi Bakar fikirka uu baxay uu maanta halka ku fadhiyo inaan haddaan nahay guddida odayaasha kadib bulshada galbeedka Somaliland inaan shaqo ku lahayn inaan ku wada soconin inaan ku tashan tagayada aw barre ay dadku afka la dhacayaan in la leeyahay aw barre ku soo gooyeen ama aw barre warqad ku soo qoreena wata inta aw barre tagtay waa talka maanta fadhida waa ku dhannahay waxa weeyaan wax yar oo maanta joogay baan naga fufaa naga maqan waxa weeyaan wax ka jira ma jirto waxa weeyaan propaganda iyo waxaan jirno dadka loo kicinayay waxaan cadaynaynaa suldaanka walaalka iyaga isaga waxaan ku leenahay walaalow ka soo noqo halkaasoo ku soo noqo talada iyo arrinta ku soo noqon leenahay halka aad fadhida halkii suldaan mahayna soo noqon leenahay isaga intaasaan halka kaga baxaynaa haddii aan ku soo noqono waxa weeyaan taladu waxa weeye xukuumad baa jirta Somaliland oo muddo dhowr iyo 20 sano soo jirtay duqey baa meel walba joogta culimo cid walba way joogtaa talada Somaliland waxay ummadda Soomaaliyeed uga hadhay waa wada jir iyo midnimo iyo arrimo si degdeg ah loo wada qabto iyo dadka soo isku aragto qabto iyo dadka reer Somaliland oo runtii nabadgelyada hormariya horumarkeedu nabadgelyada iyo shay walba nabadgelyada hormariya nabadgelyo marka ay timaado kadib ayay galaan waxa weeye haddaan nahay duqeyda baryahan dhulka ku shirsan ee horumarka dalka u shirsan ama gaar ahaan galbeedka u shirsan haddaan nahay anigu Somaliland baan nahay Somaliland mala ka tashano kaga baxnayna ma jirto Somaliland baan nahay dadka ayaanu Somaliland ku nahay dalka ayaanu Somaliland ku nahay waxa ummadda haddii ay tabasha timaado ama saama qaybsiimaado ma hay wax kale la dhaxgeliyo waanu ka xunnahay cid kasta oo ku halqabsanaysa ama arrin kale dhaxgelinaysana adiyad baan ugu xunnahay maanaan u korin wax biyo kama dhibcaana in tabashada iyadoo ama saama qaybsigayo barteedii taagan yahay aanan u fadhino ilaa idanka u dambeeya xabada u dambaysa ilaa ay dhammaystiranto sideeda ayaanu qayb galnaa haddaan ay rag warsanaya oo meel kale ku socda dee kuma saami waxa weeye saami qaybsiga kama hadalay dinigu xiisi la baxaya sheer baa lagu yahay sheerin way dadku waa sheerin way hantidu waa sheerin way maamulku waa sheerin way haddii aan waxayga la baxayno dee macnaan u doonano oo nidhaahno waxay magaranaysaa waxaan u baahannahay magaranaysaa waxaasan doonayna ma jirtaba dee wixii aan kula lahayn waan macnii waan la baxnay way sida awgeed waxaan wax ku wadaan wax ku kala wax ku qaybsanayna oo wada lahaanshaha waa aaminaanta aan aaminsanahay Somaliland waan aaminsanahay Somaliland baanu nahay meel kale tagaynaa ma jirto dadka magaranaysaa ku ololaynayaan qodobka isaga aad iyo hoga waan toobaan wixii farsamo mararka qaar kood bari dhawado kala ciidamadu kala hadlay wixii farsamo waa farsamo weey farsamada waa la isku oran karaa
waxa loo ciidamo sanhayana baa la oran karaa xukuumaddu sanhaya shala oran karaa waxa way waa mid farsamo weey mid farsamana waxa weey halku qof uga la muuqato ayuu kaga hadlayaan waxaan ku soo gunaanaday hadalka annagu haddaan nahay duqeyda bilow ilaa dhammaad waxaan soo qornay waan fadhinaa waxaan u geysanay halkaana waxay ahayd waxa la wada leeyahay waxaan aad isku dul taagayaa maalinta la kala baxo waxa weeyaan dee waxa imanaysa inaan waxba la isweydiisan laakiin inta waxa loo leeyahay bay ahayd inta waxa lagu wada hadlayaa waxa weeyaan waa qalooc badan runtii muddo badan soo qaloocay waa qalooc badan oo ku jira golaha guurtida golaha baarlamaanka meel badan ku jira waa qalooc badan oo meel walba ay ku jira waa arin aan u baahanahay in sideeda loo xeeyo ayad quraanana maaha xadiisna maaha waa shay shakhsiyaad ay ka soo taliyeen waxaan leenahay nooma cunto taas shakhsiyaad ka soo taliyeen sida wax loo qoray waxaan ma cunto maaha sidaan u fadhinaa wax alla wax kale lagu darayo way goosanayaan meel bay ku socdaan waxbay la og yihiin qowbaray wax ku saxeen xal xarka jira ma jirto halkan saaka shirkan jiray ayaan ku qabanay hal door ujeedadiisu waxay tahay inaanu idin cadayno ama idin wargelino arrinkiina laga sugayay muddada ee aanu cadaynay ee xukuumaduna ay nagu wareejisay annaguna aanu qaadnay ee aad laga sugaysay baryahanba in halkan aan idinga cadayno arrinkaasi wuxuu yahay waa arrimahan baryahanba gobolkan awdal la soo eegayey ee ciyaartu ay baryahanba halkan ka socotay ee nin kasta oo siyaasiya ninkii hadlaaba uu ku halqabsanayey shaqaaqada ama waxa ka jira gobolka awdal taas sida suldaankuba sheegay haddii aan caddayno kow waxa weeye suldaan abubakar cilmi wabar oo aada maqasheen muddo dhowr iyo 10 cisho ka hor inuu ku dhawaaqay in ay gobolka awdal uu ka go'ay Somaliland waxaanu cadaynaynaa oo sheegaynaa suldaanku sida loo sheegay waa suldaan ka mid ah salaadiinta gobolada galbeedka arrinka uu ku dhawaaqaysay waa arrin suldaanka keli ku ah aanaan anagu la qabin aanaan fikirka la qabin aanaan waxba iska weydiin oo aanaan ka wada hadal arrinkaasi ninka ku dhawaaqay ayuu ku egyahay annagu waxaan leenahay haddaanu dhaqankii nahay halkii hore baanu Somaliland u taagnayn Somaliland baan taaganahay halkaas aanu cadeynayna in anagu Somaliland nahay walaalkayo suldaankana baaq baan u soo jeedinaynaa haddaanu salaadiintii gobolada galbeedka Somaliland iyo cuqaashiiba nahay oo aanu ku leenahay suldaan abubakar waxaanu kuugu baaqanaa inaad dhawaaqa aad ku dhawaaqday inaad ka noqoto marka aad ka noqotidna aad nabadgelyo iyo walaaltinimo ugu soo noqotid magaaladaadii iyo gobolkaagii iyo dadkaagii waayo fikir qof kaliya socdaa wataa ma soconayo waxaynu ku wada joognay ku wada soconay guddidii midnimada aynu sameynay waxaynu ku hogaaminaynay ummadeena iyo dadkeena wada jirka iyo midnimada aynu samaysanay maanta ayaynu ku hogaaminaynay reerkeennii arrinka aad ku dhaqaaqdayna wuxuu inoo keenayaa furfur iyo kala tag iyo wuxuu ka soo horjeedaa midnimadii iyo hawlihii horumarka aynu u qabananay ummadeena iyo dadkeena suldaanka intaasaan ku leeyahay waxa kaloo sida suldaankuba u sheegaan halkan ka cadaynaynaa in saami qaybsigan cid waliba ay ku soo afqabsanayso uu yahay kii aanu annagu samaynay sidii suldaan baada maanta dhawada u sheegay annagaa qornay annagaa geynay annagaa ku doodnay annagaa ku garnaqsannay oo xukuumadda kula garnaqsannay halkeedii bayna noo taalla kamana hadhanno waana wakhtigeedaan sugaynaa annagoo jecel in sida ugu dhaqsaha badan leh loo soo dedejiyo maadaama ay noqotay issue ama ciwaan cid waliba oo doonaysaa inay meel gujisaba ay sii marto oo ay ku hadasho ku xoqato arrinkaana waxaan leenahay
hanaloo daba fadhiisto sidii marka horeba naloogu daba fadhiyey ee naloogu taageeray hanaloo daba fadhiisto annaga nalaga warso u dul qaadan mayno cid dambe oo ku dul xoqata oo arrinkaygaa baabiisa oo siyaasadaysa oo dhinac kale u dhigtana u dul qaadan mayno taasina waa qodobkayga labaad waxaan saleeyahay arrinkaa fikradda walaalkii usudaawo kale halkaa isla taagay ee goosashada Somaliland aan ka goosannay lama qabno waxa kale ee saami qaybsiga waa kaan geynay waan la qabnaa waan u fadhinaa halkeedii baan u fadhinaa kamana tanaasuleyno ilaa aan helno waxaan way dhalinyaro waqtigii waa la dhaafay qoriga war qalin iyo waxay maraysaa afad adduunku weel baxay waa laga tagay waxa war qalin baynu ku dagaalamayna af baynu ku dagaalamayna waxaynu ku raadsanaynaa waxa laga baxo dhagax la tuuro iyo wax aflagaada laga baxo inagoo jaamacadada dhiganayna masaajidada ku tukanayna iyo waxayna dooranayna halkeedii baan u fadhinaa arrimaha anaga nooga dambeeyay say salaadii koona sabatay arrimaha nooga nabadgeedana halla ilaaliyo nabadgeedana halla ilaaliyo ta kale sida uu yiraahdo salaadiinta wax xukuumadda waad la dahday oo soo dedeji baan leenahay soo dedeji wuxuu waxa weeye haday gabiil tahay haday wajaala tahay haday sayra tahay haday awda tahay meel haday hargeysa tahay waa saami qaybsi taba shay dadku ku xilay waxa la waa saami qaybsi guurtii haday tahay baarlamaan haday tahay wasiir haday tahay jaran haday tahay dastuur wax kasta waa saami qaybsi baan ku doonayna meesha waxa la waxan saami qaybsi weeyaan waxaan uga haraynaana ma jirto Soomaaliland halkaas aan ku dhisnay dawladda halkaas aan caga ugu taagnay xoolahaygii baan ku dhisnay maalkaygii baan ku dhisnay codkaygii baan ku dhisnay adeerayda aabayaasha abtiyaalada ayaa dhisay waxaan ninna uma daba fadhina Soomaaliland annaga islaanay annaga ale baan leenahay war waxaan u leenahay kama tanaasuleyno saami qaybsi weeyaan waanan annaga noo daba taagnaado walaalahay Suldaan Abubakar waxaan leeyahay Suldaan Abubakar adeer 6 bilood ayaan doorashadaada ayaan u caleen rogeynay ragii u caleen rogayaan kamid ahaa adoo dibadda joogta adigu wadanka ma joogin waxa inta rag ka waaweyn oo maaragtay ama culimaadiin nin waliba uu joogo nin waliba waa aniga suldaana u nala intii oo dhan waxa ku wada dhaafaynay waxaan lahayn warina kaywaana in daayir waana in mutacallima waa in qurbaha jooga international buu haystaa ka dibadda jooga iyo ka gudaha jooga ha isku xiro beelaha samaroonka ha isku xiro dawladda inaka jaamacadda gala gacanta ha qabto dawladda ha u shaqo geeyo wixii tabasheed sheegasiin miiska ha garaaco ayaan adiga ku door bidnay waa nasiib darro adoon taa maanta ku door bidnay ina maanta la naydhaahdo Abubakar baa tiinka jooga la naydhaaho ilmadan iska tirayna waxaan leeyahay adeero waxaan kugu celinayaa adeero waxaan kugu celinayaa haybad baad leedahay tolkaana haybad buu ku yeelay haybadaadii ku soo noqo adeero waa ka guweynahay waxaan kugu dardaarayaa darajadaadii ma aha ka soo noqon ku leh ka soo noqon ku leh waan ka baxay salaam alaykum waxaan u sheegayaa dhalinyarada inta badan way soo ururaan waxaan jirin baa loo sheegay wax Facebook la ilaayo internet iyo aanu garanay bay isticmaalaan kuwa dibadda jooga oo intooda badan laga yaabo horta in rag wanaagsan jiraan laakiin kuwa reerahoogiiba gabay oo saaqadina inay waxaan jirin u soo sheekeeyaan baa suuragal waxaan ka leeyahay wardantiina garto nabadgelyada ku dadaala waxbarashadiinu waxay ku socotaa nabadgelyo magaalada Booraba waad aragtaan caruurta iyo dhalinyarada iyo xamasta isdhex joogta waxaan leenahay wax rabshada uma baahna umana baahan doonaan dhibtana laga daayo caafimaad jiri maayo lama cibaadaysanayo masaajid la geli maayo waxa weeye dadku maanta uma baahna wax rabshada dhalinyaradu ha ka waantoobaan intay magaalada dhex yaacaan inay magacaan jirin oo maanta cidiba hadal hayn inay sheegtaan wixii mashkalada
mushkiladina ay abuuraan waxa ay ku samaynayaan waa dadkoodii waa magaaladoodii waa dumarkii suuqa fadhiyey ee iyaga biriga siinayay waxaan leenahay dhalinyaradu ha ka waantoobaan abaabulka khaladka ah ee lagu abaabulay ee beenta ah ha ka waantoobaan baan leenahay waxa kale oo sheegaynaa dadka inta kale fikirka qabtana inaanay waxaas wax dadkan ay goosteen ama u cuntamaya aanu midna ahayn waxaan leenahay laga daayo waxaan ku soo gabagabeynayaa nabadgelyadu aad iyo aad bay u fiican tahay nin walba iyadu ku nool yahay iyadaa dadka deeqda iyadaa dadka gaadha dawladdana waxaan leenahay sugidda ammaanka kulli iyadaa u xil saaran sugidda ammaanka wixii intaa ka weydaarsan markaan annagu sheegno ciddii dhibaato soo gudbisa dee ammaanka waxa u xil saaran dawladda sidaas iyo suldaan abubakar waxaan odhan walaalkay uu fikiraan lagula qabin waad arkaysaa dhaqankiiyo walaalaha iyo madaxdii dalka ha ku keliyoobin intaa baan isaga odhan dhallinyarta waxaan leeyahay iyada waa odayaasha maanta mid shaqo doonayaa ma jire waa wada howlgab waxay idiin maqan yihiin waa idinka suga beeyaan laydiin sheegi dalkuna waa itaal yaryahay dhammaan shaqaaliya mishaar kama wada heli doontaane waa la dadaalayaa ee suga qurba joogtana mid baan fari bolosiga iyo lagu wareeriyey fariimaha beenta ah waxaan fari shilinka idinkaga baxaya inaad dalka arbushtaan horumarinta dalkiina ku soo darsada horumarin baan u soconaa taasaa kuwa joogan anfici idinkana idin taariikhe intaana waxaan fari dhalinyarta qurba joogta ee loo dirayo internetka beenta waxaa suldaan uu ku dhawaaqayna waxaan la qabnay wax fikirkayga midna ma anu halkayga insaan kaga baxay assalaamu calaykum salaadiinta iyo cuqaasha igu horreeyay sida ay yidhaahdeen ayaa la qabaa haddii ay saami tahay ma khuseeyo saamigu iyo waxa maqan ee doonaynaa iyo goosasha isma leh wax isquseeyo maaha annagu haddaan nahay golaha dhaqanka beelaha gadabuursi waxaan u taaganahay waa nabadgelyo waa harumar oo wax wada qabsi waa midnimo waa somalilan oon kow ka nahay oo halkii gogasha la dhigay aan fadhino oo wax la qabsano xuquuqda iyadana hello oo xuquuqdii dadka hello intaasaan u taaganahay goosasho nin kasta oo ku dhawaaqa lama qaban ama suldaan ka ahaata ma cid kale goosasho lama qaban mana ogolin midda kale ma ogolin in lagu gabado wixii annagu aan tabashahaydan geyneen dawladda hor dhigday sida hore loo soo yidhi cid ku gabataa nacab iyo nacas midda kama ogolin midda kama ogolin in ku gabado ma ogolin waxa weeye waxaan leeyahay anigu dhalinyarada bulshada waxaan leeyahay waxaan idinku baaqanay dekeedina samaysataan waxaan idinku baaqanay dariiqyada dhisataan waxaan idinku baaqanay midnimo waxaan idinku baaqanay hawlo badan oo magaranaysa in hor yaalla dibad iyo gudaba kuwii dibadda ee doonaynay inay horumarka magaranaysa ay wax ka qabtaan ay waddanka wax ka qabtaan ay ku soo noqdaan ay warshada keenaan oo shaqo abuuraan doonaynay kullay in badan oo wanaagsan baa ku jirta waxaan leeyahay inta qalloocda ilaahay dhow toobad keena leenahay ilaahay dhow toobad keena shirkaad xumaa ku bixisaan naar baad ku galeysaan kii aad dariiq hadaad dariiq laga qaado boqol soo dirteena de waxa sanaad wanaagga u baydha leenahay wanaagga u baydha waxaan leenahay annagu Soomaaliland waxa loo wax ku doorsanaynaa ma jiro waxa loo wax ku doorsanaynaa ma jiro haddaan leenahay waan goosanay odhanayno saami waxa iyaga han hal ma dhinacayn xuquuqdii dadku ah hel ma dhinacayn isba qabatadeen marka waxaan leenahay dawladda waxaan leenahay nabadgelyada adaa ka mas'uul waan ugu daba taaganahay garabkiina nahay nabadgelyada hal la sugo bulshadana waxaan leenahay xajista nabadgelyada